Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa habeennimadii xalay waxa uu soo gaaray dalkani Koonfur Afrika iyadoo si aad u ballaaran ay u soo dhaweeyeen shacabka ku nool magaalada Johannesburg iyagoo soo xaadiray saacad ka hor kigida diyaaradaha ee magaalada Johannesburg ee Ortambo. waxaa la oran karaa waa mas'uulkii dadka ugu faraha badan ay soo dhaweeyeen dalkani Koonfur Afrika inta aan arkay waxaana uu kasbaday Farmaajo shacab Soomaaliyeed oo qiira ay ka wada muuqatay oo lulaya calanka Soomaaliya kuna dhawaaqay magaca Farmaajo waliba u raaciyay guuleyso Farmaajo. haddaba Farmaajo ay u suura gali weysay in uu xataa la hadlo hal daqiiqo saxaafadda ayaa waxa uu gacan qaaday dhammaan qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa. TV-ga Home Cable oo goobjoog ahaa dareenka shacabka ayaa waxaan wax ka weydiiyay dad fara badan oo goobta ka soo qayb galay waxaana ka mid ahaa fanaanada caanka ee Fartuun Cumar oo iyadu ishayn weysay markii uu soo degay Farmaajo. أنا صار فرماجة أو تدك عن تاجر بدون أنا أقدر ثاني يقولون نقدر هذه له إن عم كبر بدون هسه سوق قبل أد بيسوي حنا سميلين ما حدا يكون ربنا يبارك فرماجة أنا لايف وانك أد والله كنت عاوح إنه ماذا جاري هرا سوماليا لو موجي سودوين على حرك ولا مقل جعل لو موجي سفي على لو سودوين ذكر أد بيفرح سنين meel istaagwal way dad ka badan aan ku qiyaasay inay ka badan yihiin 500 qof ayaa soo dhaweynay taas marka waxay muujinaysaa mudan Farmaajo sida loo jecel yahay loona soo dhaweynay maxaa yeelay Soomaaliya ayuu wax ka bedelay muddo gaabta waana adna waxaan markale ku jecel lahaa inuu Farmaajo ku soo laabto magacayga Cabdullah Faismaad doomiyaha saasa Soomaaliya Station of South Africa gobolka Gauteng runtii waxaan ku soo dhaweynay caawa farxad weyn oo ah wasaarihii hore Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku yimid wadanka ma kor dhici karo oo ma sheegi karo mataqaana hadafkiisa laakiin waxaan aad iyo aad farxad weyn ugu ah taageerada shacabku muujiyeen sida loo soo dhaweeyay loo kala hadin waxa farxad weyn oo kale in islaamka Farmaajo ayaa markii ugu horeysay dalkan Koonfur imaado waxaana dadka Soomaaliyeed ee halkan ku nool yaa ku noqotay dadweynaha tirada badan ee soo xaadiray digid caalamiga ee Ortambo ee magaalada Johannesburg iyadoo ay la yaab ahayd sida dadka qof walba oo doonaya inuu Farmaajo korkiisa taabto ama uu indhaha saaro Tahkiin Ibrahim Home Cable TV Ortambo Johannesburg Koonfur Afrika.